بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض داوديال مeel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxbarashada oo aad xillidan oo kale aad ka daawataan telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa daawadayaal maanta waxaa noogu martiya barnaamijkeena waxbarashada oo aanu halkan wareysi kula yeelan doonaa gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee ururka macallimiinta Somaliland Saciid Maxamuud Gahayr Saciid Hargeysaawi daawadayaal barnaamijkaasi oo dhinacyo badan taaban doona wareysigaasi isla markaana aan waxyaalo badan ka weydiin doono dhinaca waxbarashada ee Somaliland iyo manhajka waxbarashada Somaliland Saciid Maxamuud Gahayr ku soo dhaw telefishinka Bulsho habeen wanaagsan marka hore Saciid waan dhawahay Saciid Umar aad baad u mahadsan tahay habeen lamida daawadayaasha iyo bulshada Somaliland gaar ahaan ardayda iyo macallimiintana barida gaar ah baan gaarsiinaya waan salaamayaa way hagaag aad iyo aad baad u mahadsan sidoo kale ardaynu Saciid Maxamuud Gahayr aynu ka hadalno bal dhinaca manhajka waxbarashada ee Somaliland ee waqtigan maadaama tahay gudoomiyaha ku meel gaarka macallimiinta Somaliland maxaad kala socotaa halkeesoo xidin maraya waxaad moodaa intii ay Somaliland xorowday qabyooyin fara badan ayaa manhajka ku jira dawladdii hore ee la riday Maxamed Siyaad Barre oo madaxda ka ahaa raadadkii ay ka tagtay ayaa wali maanta ka sii muuqda Hargeysa marka la eego dhinaca waxbarashada tusaale ahaan anigu waxaan ahay macallin laba maaddo dhiga maadada biology-ga iyo maadada suugaanta ama afka Soomaaliga haddii aan ku horeeyo maadada suugaanta ilaa iyo hadda afartii buug ee ay Ganiyo Morgan daabaceen ee form 1 iyo form 2 iyo form 3 ayaa wali Hargeysa lagu dhigaa ama Somaliland oo lagu dhigaa sababta aanu dhaliilay waxa weeye ujeedada loo aasaasay ama loo qoray manhajkaas dawladdii Soomaaliya waxa uu ahaa in lagu raadiyo wixii loo oran jiray Soomaali weyn oo waxa la soo qaadanayaa halabuuro u dhashay koonfurta Soomaaliya kuwa Kenya u dhashay kuwa meelo kale u dhashay kuwa Somaliland u dhashay kuwa inta badanna waxay guwaabinayaan aragtidii ahayd in la raadceeyo rajadii 60kii la raadinayay ee ahayd Soomaali weyn ay dadka Somaliland ahaayeen kuwii koobaay aqbalay isla markaana aynu ognahay wixii aynu kala kulannay marka aad baan u naxaa macallin ahaan marka soo saaro gabay uu tiriyay nin koonfurta Soomaaliya u dhashay in aan dhigaya waxaan ka jecelahay in aan dhigo gabayada Hadraawi kuwa Xasan Sheekh Muumin kuwa Maxamed Xaashi Dhabac Gaariye kuwa Xasan Ganay kuwa dhalinyarada halabuurka ee Somaliland kuwaasaan ka jecelahay in aan dhigo marka waxaan leeyahay aad baan uga xumahay inaan maanta Hargeysa ku dhigo casharadii uu diyaariyay macallin Maxamed Siyaad Barre casharadii ay diyaariyeen inamadii Morgan iyo Gani iyo dadkii la midka ahaa waa dhaliilaha ku jira manhajka suugaanta haddii aanu noqdo maadadan kale ee biology-ga waa cilmiga barashada noolaha ilaa iyo hadda buug ma jiraan science ah oo laga raadraaco Somaliland ay diyaarsatay iskeeda ay diyaarsatay waa laga yaabaa inay manhaj diyaariyeen laakiin waxa lagu oranayaa waxaad raadraacaysaa manhajka Kenya manhajka Ingiriiska kuwa Somaliland u gaar ma jiro buug Somaliland u gaar ah oo biology ah ma jiro mid Somaliland u gaar ah physics mid geography ma jiro mid taariikh ma jiro waa markan ka hadlo dugsiga sare wadamo kale laga raacaya Kenya iyo Ingiriiska iyo meelo kale ayuuma naloo diraa inuu buuga Macmillan soo eega buuga biology GCSE ee Ingiriis soo eega buuga complete chemistry ee Oxford ay qortay soo eega war dal baynu nahay oo dad baynu nahay oo aqoontii baa buuxda oo macallimiintii waa diyaar oo ilaa 60kii ragii wax soo dhigay baa jooga Professor Saleebaan iyo baa jooga jaamacadda Amuudka madax marka waxaan leeyahay inta aad kolba noo diraysaan buug loogu talagalay dal kale oo aan dhaqankeena waafaqsanayn oo aan diinteena waafaqsanayn oo aan dadnimadeena waafaqsanayn oo garashadeennii caayaya waxaan jecelahay wasaaradahan inaanu diyaarsano buugaag inaga inoo gaar haddii aan hal mawduuc malaha ka soo qaato soo jeediseen idinku urur ahaan gudoomiyaha ku meel gaarka ee macallimiinta Somaliland marna ma soo jeediseen wasaaradda waxbarashada iyo manhajkiin wax laga bedelo manhaj sax ah oo Somaliland u gaar la helo idinku ma keenteen marna intaas hadii habeenba waa qeylini hawshan aan ka hadlayo anigu shakhsi ahaan ilaa 2009kii waan waday war afka Soomaaliga quweeya oo ka reebina ardayda sayniska ah
carabigii ingiriisigii waa loo dhigaa ardaydiiba carabigii ingiriisigii waa loo dhigaa ardaydiiba laakiin soomaaligii waxa la yidhi waxa loo dhiga un cid kooban marka dee waxa weeye waxa afka soomaaliga hargeysa loogu saqiirinayo carabigii ingiriisina loogu naxnaaxinayo anigu ma garanayo dee godobku galay waanu qaylinaa waanu hadalaa waanu guubaabinaa waanu hogatusnaa waa xiiqne waxaag sicid marka laga hadlayo manhajka waxbarashada Soomaaliland uu leeyahay waxa ka dhawaajisay inay kulli manhajada lagu dhiga ay yihiin qaar meel wadamo laga taxraacayo waxaynu lahayn wadankeena Soomaaliland taariikh iyo halgan iyo hawlo badan oo taariikhdan iyo calankan Soomaaliland loo soo maray imika taariikhdii SNM oo kale manhajka waxbarashada Soomaaliland ma ku jirtaayo taariikhda manhajka in lagu daro taariikhdii SNM haddaanay ku jirin maxaa loogu dari waayay taariikhda SNM manhajka waxbarashada Soomaaliland new taariikhda SNM way ku jiri jirtay manhajka laakiin waxa laga saaray 2008 baa laga saaray waxaan filayay in maanta uu dalka hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo gudoomiyihii ugu muddada dheeraa halgamayaashii SNM gudoonkooda in dib loo soo celin doono laakiin waxaan aad iyo aad uga xumahay oo ayaan daraahay inay weli maqan tahay waxa taas ka sii daran waxa laga yaabaa anigu waxa ka shaqeeyaa iskuulkaygaas wuxuu qaatay aragti ah inuu nooleeyo halganka SNM fasaladiisa wuxuu ugu magac daray Habuura Burcaduuray Madaweyn Madalo iyo meelo iyo magacyo muhiim ku halganka SNM maalintaan waxaan xusaynaa dhacdadii Ibrahim Koodbuur kula baxay Cabdullaahi Askar culayska ay wasaaradda waxbarashada saarto ma maleyn kartid waxaan ugu qasbay inaan masaxno magacyada SNM oo aanu qaadano magacyo kale imika lama jecel Cabdullaahi Askar lagula baxay marka macallimiinta abaabula wasaaradda waxbarashada marka culays ku saarta arintan wasaaradda waxbarashada cid kale eedayn maayade anigu macallin baan ahay wasaaradda waxbarashada hoostaga wasaaradda waxbarashada ayaa culays nagu saarta in aanu joojino xuska aanu u qaban qaabanayno sanad guurada dhowr iyo 20aad ee ka soo wareegtay la bixitaankii Cabdullaahi Askar ay la bixeen mujaahidiin uu kamid yahay Ibrahim Koodbuur waxaan loo qasbay inaan tirtirno magacyada galaasada ku xaradnay ee halganka SNM Habuure iyo Madaweyn iyo Burcaduuray iyo leh oo markaa waa Sicid kandiga waa dugsi ee la ilaa mujaahid qula aadan dool horna waxa loo oran jiray Axmed Guray waa dugsi hoose dhexe waad noogu iman kartaan oo imaka xiisado ayaan ka galayaa maanta marka waad noogu iman kartaan oo waad arki kartaan waxa nagu dhacay waxyaad inuu soo noqono على waxyaalo badan gaal oo dhinaca waxbarashada Soomaaliland maxaa caqabad ah la taaban karaa ee waxbarashada Soomaaliland maanta aan oran kartaa way ku xeeray marka waxbarashada laga hadlayo caqabadaha ku xeeran waxa kamid ah hagitaan sax ah ilaa hadda inay heshay in kale anagu ma aaminsanin cid haysa cid ma jaraha u qabata cid sida saxda ah noo hogaamisa ma hayno waa laga yaabaa hadaan aragti jeedino in la yiraahdo way fiican tahay wallahi waa wanaagsan tahay oo madaxana loo ruxo laakiin wax inta ka badan oo si socda ama waxna laga dhageystaa ma jiraan marka waxaan leenahay waxay ka qaldan tahay halka ugu sareysa wasiiradii soo maray agaasimayaashii soo maray agaasimo waaxidada bal manahijta waqtiga waa halka dhibaato ugu badan ay ka jirto ka dhaxgal Siciid waqtiga manhajka waxbarashada Soomaaliland laga saaray taariikhda bal waqtigaas ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada waxa ahaa Xasan Xaaji Maxamuud Warsame Xasan Gadweyne agaasimaha manhajtana waxa nin la yiraahdo Cabdullaahi Yaasiin oo maanta jooga kulli hay'ado ayaa ku shaqaalay samaynta manhajka bari Soomaaliland istiri manhajka samayso 2004 waxaan ogaayada oo hay'adaha qaar ay yiraahdeen manhajkiina waxa ku jira wax ka hor imanaya qaramada midoobay waxa ayimaya xuduudaha Soomaaliland ay leedahay calanka ay leedahay balakada hay'adaha ku qasbay laga saaro hay'adaha ayaan ku qasbaya hay'adaha ku qasbaya anu cid kale hay'adaha ku qasbaya way hay'adaha dani ugu jirtay saname waxay dani ugu jirtay inay raadiyaan aragtidii Soomaaliyeed ee aynu
kasbanay burburka iyo halaaga ayay weli u ololeynayaan iyaga iyo dawlado badan oo la moodo in ay maanta ina taageerayaanba waxaan ogahay inay u ololeynayaan aragtidii Soomaaliyeed rajadii dhimatay 60kii marka hay'adahaas ayaa ku lug leh inay saaraan manhajka SNM oo ay wax yar oo aad oranayso waa sidee waxaan u qalmin ardayda ayay soo diyaariyaanay Soomaaliland ay yiraahdaan dhiga qolooyinka Puntland iyo Koonfurna ku yiraahdaan dhiga marka wax aad loola yaabo kun jeer ba manhajka hagaasay lugumada ka kala ka saara oo ardaydii ninkii wax dhiganay xilligan wax dhiganay anu ardayga haye kamaanta wax dhiganay isku nasiibnay anu manhaj ballaaran baan nigtay manhaj بينفعي ayaan dhigtay laakiin ardayga maanta wuxuu dhiganayaa manhaj la rifay oo wixii shish laaba laga saaray oo ladan laga saaray oo la koobo la uriyo la buquuji marka taariikhda asal xawataaka ka liidata tabad isleedahay macallin ahaan Siciidaan xawataaka weyn ku dhigan jirnay iskuulada meelaha u dhalatay waxay tahay inaan garanay والله بدي مر هدي حاوتها كمان أشكله بقول هاي لكن إيش أنا ملودي دي إيش أنا حاوتها كوي كل ده كليه إيش أنا من ما هين لقدره وين لقدره تاريخ دي قبل السومال لانودن وين لقدره تاريخ ده اللي هي صالية سنة أكبري يهالجنة دي دراوش ده إنجليزي اللي جسور كذي وين لقدره بقرطوي يمكن قديم كهاي كدسنا أوضل يسلل يسيلع أضال يفات دين الإسلام كود قال لما أحمد قريه جامين وين لقدره وين لو قدرت تاريخ ذي سنم مركا waxaan leeyahay hadii ay jirto xitaa cid dhibsanaysa sanam iyagana ha loogu daro tay jecelihiin tii daraawishta inuu ku darno waa Soomaaliland oo taleex waa Soomaaliland awdal yisalal waa Soomaaliland boqortooyo qadiimi leeyihiin waa xarumii xadaarada iyo ilbaxnimada iyo ma garanaysaa marka sida dheeliga tiran hadii sanam lagu shaabadeyn lahaa beesha dhexe waxaan leeyahay beelaha kalena waxay leeyihiin taariikhoodii hal lagu daro iyadoo aan dadka beele laga dhigayn iyadoo la midaynayo iyadoo la raali gelinayo dhammaan ummadda Soomaaliland dhammaan ummadda laakiin waa wax aad looga xumaaday inay waxa soo dhami ka maqan yihiin eesana mana xawataa ka way ka liidataa barnaamijkeena dhinaca waxbarashada ee maanta noogu martida tahay Siciid wax badan baad ka dhawaajisay arrin badan baad sheegtay fariinta aad maanta u dirayso wasaaradda waxbarashada fariinta aad u dirayso dhammaan macallimiinta aad gudoomiyaha ku meel gaadhka aad u sii tahay macallimiinta Soomaaliland oo dhan maxay noqonaysaa maanta aragtidaada adiga kugu waajahan in lagu horumariyo manhajka waxbarashada iyo dhammaan waxbarashada Soomaaliland siyaabii loo sii horumarin lahaa fikirka aad ka aaminsantahay wasaaradda u dirayso macallimiinta u dirayso maxay noqonaysaa الفكر كان وسارة دكتور وحوية dhalinyaradu waa xoogii dalka maskax iyo muruq iyo maal iyo intaba waxay u horayaan inay horumarka waxbarashada ka qayb qaataan fadlan u ogolaada inay xilal ka qabtaan wasaaradda waxbarashada oo ay manhajka talo ku yeeshaan wax badan oo qaban lahayn waxa noo diidan awoodii dawliga ahayd baa naga maqan oo inaan tamaashiir qaadano mooy wax kale looma ogola macallimiintana waxaan leeyahay waxa la gaaray xilliga aynu ka hadli lahayn danaheena ee aynu dulmiga diidi lahayn waxa la gaaray xilliga aynu ku dayan lahayn macallimiinta taariikhda galay ee UFO محمد بارود علي أحمد محمد مدر دكتور عثمان عبد ميغا ومعلمين دمان والله يقان هلكن كي قالين كدي markay xaq darrada ay ka dhiidiyeen sidee la inoogu ogolaan way macallimiinay inaynu furno urur sharci ah ilaa intii Soomaaliland xorowday lama hayo wax urur sharci ah wasaaraddaas ay ogashahay maanta anu waxaan diyaar u ahay in jid kasta aanu maro si aanu heli lahaa midowga macallimiinta waxaan leeyahay halganka aad idinku qarsanaysaan ee idinka dhex guuxaya macallimiin anigu waan muujisto waad ku mahadsantihiin taageerada dadbaneed siisaan insha Allah maray noqotana waxa jirta maraynu midoobi doono oo aynu hadafkeena isku raaci doono waxa jirta maraynu midoobi doono hadafkeena isku raaci doono waxaan leenahay wasaaradda waxbarashada far badan baa ku godan gaar ahaan qaybta manhajda waan ku celcelinaya qaybta manhajda far badan baa ku godan waxaan leeyahay hal saxo oo dib ha loogu noqdo oo shir qaran ha laga yeesho manhajka Soomaaliland